بسم الله الرحمن الرحيم. waa mar kale iyo maalintii saddexaad ee shirweynaha sanaad hadda waxay noo bilaabanaysaa muxaadaradii labaad ee maanta waxaana inoo soo jeedin doonaa Mustafa Xaaji Ismaaciil. cinwaanka muxaadarada waxa la yiraahdaa rajooyinka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool. فليتفضل مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وترضاه. وبعد، waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala inaan wax ka tilmaamo mawduucan u bixiyey ta'ammulaat fii mustaqbal aljaaliya asoomaaliya fi lgarb. wuxuu ku saabsanaan doonaa mawduucaasi inaanu u fiirsanno ama se aan odorosno bulshada Soomaaliyeed ee soo barakacday, soo guurtay, dabadda degtay, iyo mustaqbalkeedu siduu u ekaan doono. mustaqbalku waa qayb oo alla og subxaanahu wa tacaala, laakiin waxaan adeegsan doonaa waxyaabaha wax lagu baxsiyo ee lagu sameeyo bal in wax laga saadaalin karo. markaan erayadan tilmaami doono waa ra'yi qof ka mida dadka ku nool qarbiga ee jaaliyadda ka mid. waa ra'yi inuu sax yahayna dhici karto, inuu seegseegaana ay dhici karto. waxaan ugu talagalay inaan soo bandhigo waxaan dhibta u arki karo iyo waxaan xalka u arki karo, laakiin waxaan ugu talagalay inay noqoto su'aal aan maskaxdiinna dib ugu soo celiyo, oo ah inuu mujtamaca kan ku nool galbeedku ee Soomaaliyeed in badan uu fakero, in badan uu indhaindheeyo, in badan uu isku dayo siduu jiritaankiisu u sugmi lahaa. waxaa mawduuca mu'tamarkeennu ahaa sida loo badbaadinayo wasaa'il inqaadi lumma, qaabka loo badbaadin karo ummadda. waxa aan rabaa inuu markaasi jaanibkani noqdo bal sidee loo badbaadin karaa kuwan dabadda jooga. aan marka koowaad su'aal ku bilaabo. dadka xaggan joogaa miyuu noqonayaa ma guurayaa? waa su'aal in badan soo noqnoqota. waxaan leeyahay dadka halkan jooga ee galbeedka soo degay, inta aanan ka warramin degitaanka galbeedku miyuu bannaanyay mise ma bannaana, waxaan ka warramayaa waaqicu iyo siduu u eg yahay. waxaan leenahay markaas jaaliyadda Soomaaliyeed ee galbeedka degan afkaarteeda marka la isku daro waa saddex kooxood. kooxda koowaad waxa ay habeen iyo maalinba ku riyoonayaan oo ay rumaysan yihiin in la noqdo, in meesha tan laga tago. waxa ay tilmaamayaan meeshan joogitaankeedu inaanay mustaqbal lahayn. ay ku qanacsan yihiin, waxay ku qanacsan yihiin inay noqdaan. laakiin kooxdaasi ma badna, waayo markaan indhaindheeyey dadka su'aal baan weydiiyey dad badan ama aan indhaindhayn ku aagay
inaan qofka weydiiyo bitaxdiid goormuu rabaa inuu noqdo marka uu se maxay hela buu rabaa inuu noqdo dadka inta ugu badan leh waxaan ka arkay inay rabaan inay noqdaan marka ay jawaaska waddanka qaataan baasaboorka markay helaan iyo marka ay waxoogaa urursadaan su-aasha isweydiinta leh waxay tahay hadduu qofkani ku qanacsan yahay inuu noqdo oo uu guuro oo uu galbeedka iskaga tago muxuu u sugayaa baasaboorkooda muxuu ku falayaa wuxuu rumaysan yahay halkii soomaalidu maxay odhan jireen lugna diriir ugu joog lugna baqa ugu joogtii waxaanu mutma'in ku ahaynoo ku qalbi samayn meesha uu ku socdo meeshii uu degi lahaa ayaanu ku qalbi samayn tanna wuu ka go'ay meel dhexu markaa lalmanaya laakiin horta waa ka go'an inuu tijaabiyo inuu tago inuu tijaabiyo waxaan se arkay in badan inay soo noqotay waa jiraan afraad kaga dhabeeyey inay tagaan aan soo noqon laakiin in badan oo ama ninku tegey ama ninkii yar gabadhiiba israaceen ama dadkii wada guureen oo soo noqotay baa jirta kooxda labaad ama daa'ifadaas mooyaane daa'ifada ku xigta waxay arkayaan yani kooxdaa hore mowqifkaasay taagan yihin waana laga yaabaa xataa environmentku inuu raad ku leeyahay oo markuu xaggoo tegay environmentkan uu bartay ee nabaddan iyo lacagtan iyo waxbarashadan iyo waxaan wada socda inuu waayo dabeetana adkaysan kari waayo kooxda labaad waa kooxda dadku ugu badan yahay bulshada galbeedka degani waa kooxda ay ugu badan tahay kooxdani waxay rumaysan tahay waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin daa'ifatu tamani waa koox yididiilo ku nool iyo riyo kooxdii hore camal bay isku daysa ama ha hirgala ama yuu hirgelinin laakiin kooxdani maaha kooxda camalka isku dayaysa qadiyadaasi uma socdaan camaliyan xagga maskaxdase way ka dareensan yihiin kooxda tani waxay dareentay dhowr shay oo dadku wada dareensan yahay alghurba waxay dareemeen qofku dhul aanu lahayn ku noolaanshiyihiisa dhibta ka timaada waxay dareemeen baa laga yaabaa alcunsuriya nooc min alcadaadis iyo raasism lagu wado waxay dareemeen baa laga yaabaa tafasukh ilawlaad carruurtii iyo reerkii oo ka burburay iyo ninkii iyo gabadhii oo isdilay iyo carruurtii oo aan gacan ugu jirin iyo dhib badan oo haysata waxa uu dareemay halkan aanu waxba ka ahayn bulshadan markuu isku qiimeeyo uu yahay tabaqa almanbuuda tabaqadii la tuuray inuu yahay oo maaha nin nafle marka bulshada tan lagu eego intaaba wuu isugu sheekaynaya uu ku qanacsan yahay laakiin daa'ifo camaliya maaha intaasba waa xaqiiqo uu taabtay oo cidi uga warrami mayso mase raba inuu ka baxo waa dadku dhanka ay ugu badan yihiin waa dadka inta ugu tirada badan leh marka intan oo dhan garteen waxay kaga soo hadhay markaa inay ka sheekeeyaan una ka warramaan fii majaalis alkhaasa aw alcaama ama meel walba baroordiiqdun baa jirta oo waa laga sheekaynaya dabaqadaasi waxaa laga yaabaa inay u arkayaan wakhtigan ay iminka nool yihiin inaanay waxba bal aan eegno mustaqbalkiiyo wuxuu noqdo ilaahay baa hagaajintaas u taagan yihi dabaqada saddexaad oo iyaguna koox yar ah aan weli badnayn wakhtiga hadda la joogo waa koox aan ku qanacsanayn inay noqoto waa koox ku qanacsan iyagu
meeshan inay barwaaqiya nimcata waa koox ku qanacsan waa طائفة يعني منهزمة داخليا xadaarada reer galbeedka la weynaatay waa koox laba qaybood miduna dad markii hore iskaga kobcay meel baadiya ama meel xadaarada iyo waxba ka fogo waxaan markay arkeen un dawaqay ama sadad asxaabu shahawaata وحرية الخمور حرية التعري حرية الديسكو حرية عدم الحياة عدم يعني وحوة حريات الله يراهده بو هلاي وهل كانوا كهلي كرنده sida daraadeed wuxuu isagu enjoy gareynaya wuxuu ku faraxsan yahay inuu halkan joogo wuxuu arkaa fursada inay tahay